oo halkan aan joogno tuulada ama degmada Xunshalay oo aan doonana inaan furno laba qaybood oo dugsiga Xunshalay ka mid ah oo la kala dhisay oo laba jaaliyadood ama hay'adda Amuud Foundation iyo jaaliyadda u dhalatay deegaanka Xunshalay iyo Gabileyba ay ugu deeqeen ummadda Xunshalay ay ugu deeqeen dugsigan halka hore oo ay 3 fasal dhiseen jaaliyadda u dhalatay deegaankan iyo Amuud Foundation oo 3 fasal kala dhistay uu dhameystiran yahay taasoo in waxyaalaha barkood ay dhiseen dadweynaha deegaanka Xunshalay oo 3 qodob hore ahaa iyo Amuud Foundation oo iyaduna ku biirisay beerandaha quruxda badan leen maanta geebigooda ku wada xiran ilaa iyo 3 qol iyo qolka cuntada mid noqon doona 4 qol iyo deyrka oo dhan deyrka maanta lagu soo wareejiyay inta badan markaas waxa dhismahaasi sameeyay Amuud Foundation oo maanta gudoomiyahoogi cigaal halkan maanta oo inala fadhiyo runtii ubad badan ayaa wax ku baran doona marka waxaan aad ugu boorinayaa dadweynaha degan Xunshalay sidii ay caruurtooda u keensan lahaayeen in yar oo xanihi way jirtaa gadaal baynu aad iskugu wada sheegi doonaa runtii marka in wasaaraddan waxaan aad ugu codsan lahaa inay iyaduna wixii macallimiin ah sidii ay u daryeeli lahaayeen ay falowgeega ku dadaalaan anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Amuud Foundation waa runtii aan leeyahay annagu Amuud Foundation ahaan mar walba waxaanu diyaar u nahay idinku baad markhaati ka tihiin horumarka iyo wax kasta oo soo hoos gala hadday tahay aafooyinka dabiiciga iyo wax kasta bulshada faa'iido u ah meel kastana waan taaganahay waxaan ugu mahadnaqayaa runtii bulshada reer Xunshalay inay waxna la yimaadeen waxna ay yiraahdeen noogu dara marka wada dadaalaya waxaan leeyahay isku duwaha arintii ugu wanaagsanayd bay maanta ku fareen isku duway waxay ku yiraahdeen waxbaanu qabsanaynaa 2 sano isku filaanayna wixii ka dambeeya ee gacanta nagu qabay ku yiraahdeen 2 sano aduguna chance baad haysataa waan maleynaya hadda waqtigu kugu simo aad sii joogto waan kugu boorinayaa runtii inaad maaragtay macallimiinta aad ka qayb qaadato waqtiga geliso aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii Dr. Cabdiraxmaan Jaamac oo ka shaqeeyay hawshan oo si wanaagsanna ugu dadaalay inuu iskuulkani maanta noocan noqdo Cabdiraxmaan uu hadlayo reer Xunshalay uu la hadlay wuxuu yiri caruurtiina keena idinkay faa'iido idin tahay bari hore iyagu wax baranayeen waxbarashadu way daba carari jireen da'doodii laakiin maanta waxbarashadu iyadayna daba cararays guriyihii bay noogu timid doorta wax waliba uu isbedelay bari hore idinku meel baad u aroori jirteen fog ibagana dad biyoodaan wad qaylisan wax tiraadaan oo reerku biyaha la soo gaaro waxbarashadiina noocaasay noqotay marka waa guriyihii baa laydinku keenay ka faa'iideysta chance-kaadi kaale odayaashu haba iska cuneen muxuu ahaa geedka laynagu mashaqeeyeen kaarte laakiin caruurtu yaani meesha seegin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wuxuu qabaa oo ay ku taakuleeyaan wax alla waxay ku taakuleeyeen 20 sanadood bay ka soo wareegtay markaan asaasnay Amuud Foundation waxaana noolna xuroono rukuna inaan ku dadaalno sidii waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar loo heli lahaa iskuulkan waa iskuulkii saddexaad ee aan xariga ka jaray intaan anigu wadanka joogay oo ilaa 2 week bara waxaa la inoo sheegay oo diinteenu ina farasa aayadii ugu horeysay oo soo degtay waxay iqra nabiga kaleey salaatu wasalaam ku soo degtay taasina haday waxayna tusasaa faa'iidada iyo waxqabadka waxbarashadu ay leedahay waxaana ka turjumaya sidoo Cabdiwahaab inuu sheegay annagu waanu halkan markaan iskuulka qalooc baan ka baxay oo elementary aan galay sheekh baan tagay kii dhexe
halkanna maanta waxaa laynagu keenay iskuulkii hoose iyo dhexe. qofka umana aragno annaku inaan kharash galnay. qofka bini-aadankaa waxa quree wax la siin karaa ee ugu faa'iidada badani waxa weeye marka wax la baro. waxbarashadu rukun dhismaha bini-aadanka ayay ka mid tahay. aad iyo aad ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba Dr. Cabdiraxmaan iyo jaaliyadda ka soo jeeda deegaankan iyo dadka daneeyay inay wax inii qabtaan. qofka bini-aadanka qofka ugu wanaagsan bay diinteenu ina faraysaa waa qofka kala daneeya ee wax ku darsada. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. annaku gobolka Gabiley markii noogu horeysay maaha, markii noogu saddexaad maaha, waxbaan gashanay. waa dadkayagii. markii layidhi Wajaale aniga beerteedu waa laga arki karaa Wajaale. dhulkani waa dhulkayagii maaha dad qalaad ma nihin. waxaanan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan wax gashanno because waanayna jecelnahay. dadkaygii baa tihi in dadka laysku soo celiyo, in laysa saamaxo. laakiinse waxaa dareenka nagu jira badan wax nagu soo tuuro. marka taa inukuna lixjecladeeda waa inaad yeelataan haddaad reer Xunshalay. soo isma maqlano. iskuulka aynu joogno dugsiga hoose dhexe ee Xunshalay shalay wuxuu ahaa meel bannaan ayuu ahaa. maantana dhismaha quruxda leh ayaaba ku yaala. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka isku hawlay iskuulkan dhismihiisa inay ka qayb qaataan ee suurtageliyay inuu dhismahaasi dhammaystirmo, hadday gudaha joogaan iyo hadday dibadda joogaan. wasaaradda lugta ay ku leedahayna waan ognahay inay haddii eebba idankeyga leeyahay dadweynuhu miisaanka hawsha inta ugu weyn iyagu ay qabteen. oo maxaanku idhaahdaa Amuud Foundation iyo degaankii reer Xunshalay dadkii ka soo jeeday ee halkan ku dhashay. waxa kale oo meesha yaalla iskuulku maanta haybadaasuu leeyahay. iskuulkaas oo arday aanu joogin biri haddii la arkana waa nasiib darray noqonaysa. midna waan yar saluugayaayo haddii maalinta shabagaa la xidhayay lana soo wargeliyo shabaga halkaa maannaan dhignayna waan ka fogayn lahayn. shabaga waan ka fogayn lahayn. iskuulku maanta waxa uu leeyahay oo keliya intaa shabagu ugu xidhan yahay. mustaqbalka dugsi saraa iman, jaamicad baa iman, adduunyadu mar wada degi mayso. dadkani way jirayaan ilaa inta adduunyada la laabayo. halkani iskuulkii Xunshalay bay ahaanaysa laga onkay in bannaankaasi jaamicada ka dhismaan baa suurtagala mustaqbalka. eeriyadu way inagu yartay, aad bay inagu yartay. taana reer Xunshalay inay wax ka qabtaan baan doonaynaa. waxa weeye taasi taa weeye. Amuud Foundation waxaan leeyahay iskuulka aad dhisteen ilaahay dartii aad u dhisteen, ee dadkiinni u dhisteen, ee ehelkiinni u dhisteen, ee Soomaaliland u dhisteen, ee Gabiley aad u dhisteen. gobolkii Gabiley buu ku yaalla. halkanna Gabiley weeyaan. dadka waa wada reer Gabiley. dadkani waa wada ehel weeye. ya abti iyo ina adeer iyo awow iyo wax kala fogiba ma jiro horta. waa raas kale inuu ilaahay barakeeyay. iskuulka waad dhisteene si faraha ka qaadinay gacanta ku haya isagana. ay tahay 19 bisha 7/2018 waxaan taaganahay goobtaan taaganahay waa dugsigii hoose dhexe ee Xunshalay, kaas oo ay asaaskii ay lahaayeen bulshada reer Xunshalay haddii gudaha joogaan iyo haddii dibadda joogaanba. waxaan kaloo mahad celinayaa hay'adda ilaahay Amuud Foundation oo dhismaha badankiisa dhistay. aad iyo aad baan u mahadsan yihiin. laakiinse waxaa muhiima in dadka dadweynaha reer Xunshalay ay qayb weyn ka qaataan oo ubadkooda keenaan. hadduu cidlo noqdo ubad la waayo dee macalinka waxba dhigi maayo. marka waxaan ku boorinayaa dadweynaha reer Xunshalay inay carruurtooda